qofka mu'minka ahi ilaahay buu hortaagayay dabeetana rabbuu la hadlayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad aniga toos ila hadlaysaana waa kuu jawaabaya alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhaahdo xamidanii cabdii baan odhanayaa ba rabbi leeyahy addoonkay baa ii mahadnaqay ima hadiyey alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ahnaa calaya cabdii baan odhanaya addoonkaygii baa i ammaanay maaliki yawmiddiin markaad tidhaahdo majadanii cabdi addoonkaygii baa i weynay ilahay wuu kula hadlaya laakiin haddaanad ogeynba inaad faatixada akhriday iyo inaad akhriday alxamdulilah rabbi alamin laakiin xisaabtaadaad iska wadatay imaamku markuu assalaamu calaykum yidhi un baad baraarugto adna assalaamu calaykum tidhi nin shaydaan la yidhaahdo oo khatar ah oo u gaaro salaadaha inaga shaqeeya iminka haddaad cunno cunayso wax kale ma ka fekertaan mise cunadun baad hamtaa ku haysaa fekeri maysid haddaad tv-ga daawanayso wax kale ka fekeri mayso waad iska daawanaysaa waxa uu sheegayo un baad arkaysaa hadduu qof kula hadlayo wax kale ka fekeri mayso salaada markaad u kacdo un baa dunida lasoo ururinaya markaad waxa kale qabanayso shaygaa camalka aad hayso un baad ka fekeraysaa shaqo kale markaad hayso o dhan haddaad imtixaan ku jirto isagaad ka fekeri haddaad shaqaysanayso shaqadun baad ka fekeri haddaad waxaad qabanaysa kalead ka fekeri mar alaali markaad salaada isu taagto ayuunbaa qolo kale imanaysa una markaas unbaa adduunka lagugu soo ururinaya idan saa daraaddeed nabigu wuxuu leeya alayhi salaatu wasalaam mid baa tukado salaadiisa 10% leh mid baa le baa la yidhi tusuc aha tusuc waa 1/9 waa xawaalay less than 13% meelahaasuu noqonaya mid baa le sumunkeed baa la yidhi 1/8 1/8 mid baa le ilaa iyaba nabigu soo gaadhsiiyey nisf mid baa leh 50% salaadiis idan salaada waynu ku jiraa oo safka waa wada taagannahay cinda allahi se waxaa la qorayaa isku noociyaad maaha salaadiina way asaxdo shuruudeedii waynu samaynay laakiin markay ilaahay agtiisa joogto isku nooc noqon mayso marka waxaa laga yaabaa nin 20 sano tukanayey mid sanad tukanayo saadiq ahaa inuu kaaba ajar badan yahay sanadkiisu sanad midnida oo uu soo jeedo rabbi uu caabudayay idan anigu weligay baan soo waday kan yari muxuu sheegay weligaa qof ay yaraysanin muslima garan maysid cidda laga aqbalay garan maysid adigaagii 30 sano soo waday waxa laga yaabaa inaad 10% weligaaba waday ama 0 ba qaarkood ay ku dhaceen mid mintida hadduu yimaado 50-50 laga aqbalayo shantaadii maalmoodba maalin isagaa shantaadii sannadoodba sanad isagaa bay noqonayaan idan wuu kaa badinaya idan markaynu qubuulka ka warramayno waxaynu ka warramaynaa cama fi lquluub waa mar waxaynu ka warramaynaa mawaanic khaarijiya inaanay jirin wax manciyo oo joojiya salaadaada in la aqbalo matala nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay 3 laa turfac lahum salaatuhum fawqa ru'uusihim shibra xadiidka ibnu maaje xasanka 3 salaadooda taaka in leeg madaxoodaba ma dhaafto midna ogsoonow salaada markaynu dhahna lama aqbalin macnaheedu ma waxa weeyaan waad soo celinaysaa maya ajza'at waa gudday salaadnimadii lagu qabsan maayo aakhiro laguma laha salaaddii ma tukanin aakhiro inta lagu soo taaga lo odhan maayo ninkani maxay salaad ma tukanin laakiin dee qabsasho qura maad u soconin waxaad u socotay inaad ajar urursato waxaad u socotay in la yidhaahdo asalaam bay 2 salaadood inta udhaxaysa takfir maa qablaha salaada kale dembigeeda inay kaa maydho dadka bar baa su-aala isweydiiya uniyu salaad waliba salaada ku xigta hadday dembiga maydhayso maalan ramadaan ilaa ramadaan maxay maydhaysaa ama jimca ilaa jimca maxay maydhaysaa dee taadu mid yaroo naaqusa bay ahayd oo wax badan may maydhin markii hore aad 10% iyo 5% iyo 15 marka haddaad isku jaabaysataa laga yaabaa inay maxay shantii waxoogaa maydho jimcii waxoogaagii soo hadhay badh maydho oo ramadaan dayntii soo hadhay badh maydho haddaad dadaalka badiso waa laga yaabaa inay isbiirsato laakiin nabigu wuxuu leeyahy alayhi salaatu wasalaam 3 salaadooda madaxooda lama dhaafiyo rajulun ama qawman wahum lahu kaarihuun buu nabigu yihi nin dad jujuub iskaga haysto salaad tukiyey iyagoo aan rabin salaadiisa waa khatar dee malaaka dawladdan iyo daddan qasabka ku haystaana ma dhaamayaan u malaynaya de salaad qura hal salaada kii ku haystay haddaan waxba helaynin ummadda dhan iska afduuftayna malaha ma dhaamayo laakiin xadiidka naskiisi wuxuu sheegayaa man ama qawman wahum lahu kaarihuun ninka dad imaam u noqda iyagoo neceb oo aan rabin walidalik a'imada masaajida iyo ragga masaajida tukiya waxaa fiican
inuu qulubta dadka ilaaliyo oo dadku qof ay raalli ka yihiin inuu noqdo maxay qofka dadka tukinaya oo masaajidka inaan lagu haysanin uun maxaa qorsa karama tiraahdaa maxaa tiraahdaa inaanu iska afduubanine inay muslimku wada socdaan qulubtu inay wada socotaaba ka muhiimsan waxa kaloo dhan sida ogeed buu nabigu yidhi wamra'atan baatat wa zawjuha calayha saakhitun gabadh hoyatay iyadoo ninkeedu u cadhaysayayana wax laga aqbali maayo idan dumarka muslimiinta waxa saaran inay isku dayaan zawjkeeda inay raali geliso wamra'atan casat zawjaha xataa tarjicna xadiis kala sheegayay ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay calayhi الsalaatu wassalaam ka saddexaad waxa uu nabigu sheegay waa akhawaani mutasaarimaan laba walaalo oo iska laalaada xadiidkii muxuu sheegayay qof kasta oo ilaahay rumeeya qof kasta oo laa yushriku billahi shay-an marka acmaasha ilaahay loo bandhigo khabiisaha iyo meelahaas oo kale in ilaahay dembigoo dhaafo xadiidkii sheegayay saxiixaynka ku yaalay laba mooyaane buu nebigu yidhi labadaasi waa kuwe laba ishaysta iyaga waxaa la idhaha andira haadayni xataa yastalixa labadaa iyaga dib iga dhiga baa ilahay yidhaha intay ka heshiinayaan idan akhwaan mutasaarimaan haddaynu isu wada cadhaysanno o iska laalaadno cibaadada inaga xumaanaysa haddaynu rabno in cibaadadeenu cinda allahi ay maqbuul noqoto waa inaad qof qalbi saliima leh waa inaad ahaataa qofka mu'minka ahi nabiyullaahi ibraahim muxuu ku ducaysanayey aakhiro wuxuu weydiisanayey qalbigiisa in alla ka dhiga maxay qalbi caafimaad qaba sidaa awgeed waxyaabaa jira camalkii inaga burinaya ama in cinda allahi maqbuulu noqdo xumaynaya masalan qur-aanka ilahay wuxuu leeyay ya ayuha aladiina aamanuu laa tubtiluu sadaqaatikum bilmani waladaa war kuwa iimaanka laga helayo waxaa ilaahay dartii ula baxdeen adiya dhib iyo gallad sheegase ha ku burinina haddaad intaad wax bixiso un ka daba hadasho ninkaa beraan si fiican u galay qoladaa biil baan u diraa maalin kasta lacag joogtaabaasi ha iska burinin waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtaraynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysaa haddaad adduunye ku doonaysa waa halkeed oo tilada isla markiisa ku abaalgudo laakiin asalka qofka mu'minkii waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanaya waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato markaad bangiga tagtay accountka lacag ku shubato soo ma rumaysnidan adigu leedoo account ku shubatay tanaad baxsatayna waxaad rumaysan tahay accountka aakhira inaad ku shubtay saa daraaddeed waxaad rumaysan tahay inay tahay kayd adigu aad kaydsatay cid kale waxaad siisay maaha qofka muslimkii saasuu u fakeraya waxaan ula baxay inay tahay kayd uu isagu meel dhigtay haddaba kaydkaaga ha iskaga burinin baa ilaahay leeyahy inaad sheegto oo aad mani aad dadka ugu gallad sheegato amase adiya iyo dhib inaad ka dabageyso sida awgeed waxaan leenahay ayuha alaxiba acmaasha in laynaga aqbalaa masalan nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ninka caraaf u taga kuwan faalfaaliya waxaa kale rumaysta wuxuu sheego maxay xadiis riwaayaadka qaarkood waxay sheegayeen inaan 40 yawman maxay camalkiisa la aqbalin 40 casho camalkaaga la aqbali maayo haddii la yidhaha miyad salaada iyo waxba iska dirisa maya waxba waa tukanaysaa waayo dimadaadaad rabtaa inaad beri yeesho tajzi'uk qadaa lagugu yeelan maayo laakiin dee ajarkii la rabay ayaad kaga lugoynaysaa halkaad ajar ka heli lahayd ayaad ajarkii nuqsaaminaysaa haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahannahay cibaadaadkaynu ilaahay ula imanayno subxaanahu watacaala inaynu xumaha ka ilaalino inaynu qurunka ka tirtirno inaynu maxay qalbigeennu uu noqdo qalbi soo jeeda waayo ma fi lquluub xataa inaha la aqbalaya waxay ku kala gedisan yihin baynu nihi waxa qalbiga ku jira oo masalan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay dirham ayaa wuxuu ka badiyey sabaqa dirhamun 100,000 dirhamin buu nabigu yihi hal dirham oo sadaqa loo bixiyey ayaa ka fadli bato ka dheereeyey 100,000 oo dirham buu nabigu yihi 100,000 oo dirham si uga badanaya nabigu calayhi salaatu wasalaam waxay culamadu leeyihin dirhamkan uu sheegay masalan markaad soo qaxaysay ama markaad soomaaliya ka qaxdeen adigoo aan waxba haysan oo $10 sita xoolo waanay kaaga dambaynin oo waddana aad garanayn joogo dee 10kan la jeclo ka badan boqolaalka kuwa haystaa kaaga jira
haddii aad mid 5 u dhiibto waad la naf qaybsatay markaa weeyaan. nin balaayiin iska haysta hadduu in yar ka xoobiyo uu mid u tuuro 100,000 isaga agtiisa $5 qiimahay kugu joogtay kuma joogaan maxay boqolaalka kani. idan xaaladda aad ku sugantay iimaanka qalbigaaga ku jira, ilaahay sidaad u weyneynayso, aakhira sidaad u hunguraynayso, waxaasa waxay qiimo u yeelayaan cibaadaadkaad la imanaysaa intay leegtahay. marka camalka lama yaraysto, dirham ha noqdo ama 2 ha noqdo ama ha ka batee camalkaaga ha yaraysanin. xataa waxa axaadiistu tilmaamaysaa tawxiidkeennu sow laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah ma wada lihin dhammaanteen, sow dad muslimiina ma wada lihin. xataa laa ilaaha ila allahdeenu isku qiimo maaha aakhira markaynu tagno, isku qiimo maaha. waayo axaadiista nebigu waxay sheegaysaa calayhi salaatu wassalaam qaar aakhiro tegey oo tawxiidsaday laakiin dembiye galay, dabeetana dembiyadii ay sameeyeen lagu ciqaabay oo cadaabka galay, laakiin cadaabka ku waari maayo. horta laa ilaha illa allah mar kasta waxbay taraysaa, waayo cadaabka inaad ku waarta habay kaa ilaalinaysaa. gaalkaa cadaabka ku waaray qofkii muwaxidka ahaa xataa hadduu cadaabka galo wuxuu ku jirayaa maxay muddo, laakiin dee muddadaa ilaahay garanaya. 1 milyan oo sano haddii lagu cadaabo ka war, haddaad tidhaahdo kolley waa tawxiidsanaysaa naarta waad ka soo boodiye, boodisteedu ma fududa. marka walciyaadu billah ilahay baan ka magan gelaynaa. laakiin waanad ku waaraynin, waad ka soo baxaysaa aakhirkii. waxaa kale uu nebigu sheegay calayhi salaatu wassalaam mid inta la soo taago la keenayo 99 sijilla, 99 fayl baa la keenaya oo dunuubuu galaya. kan ma gashay, kan ma yaa rabbi haa buu leeyahy, waa qiranaya. waxaa la leeyahy wax xasano aanu kaa dulminay miyaad garanaysa? wax xasanaadkaagii maqan oo aan meesha ku oolin miyaad garanaysaa? may buu leeyahy yaa rabbi. xadiidku wuxuu leeyahy ilaahay baa wuxuu ku yidhaahdaa xasanaanu ku haynaa weli, mid baa ku hadhay. dabeetana bataaqa la keenaa buu nabigu yihi waa kaadh. sijillaadka waxaa la yidhi mashriq iyo maqrib bay sijil waliba uu taxan yahay, tani laakiin waa kaadh, waa bataaqa. bataaqa la keenaa, bataaqadaasi waxaa ugu qoran tawxiidkiisii. dabeetana waa la saaraa miisaanka. wuxuu xadiidkaasi tilmaamayaa inuu bataaqadaasi waxaan oo dhan ay ka cuslaan doonto. yani waxaa meesha ka cad dadkii wada tawxiidsaday inaan tawxiidkooda isku qiimo goynin. qaar dunuubtii ay galeen ee zinadii iyo rabshadihii iyo wixii ay galeen inuu wada maydhi kari waayey, dabeetana in naarta lagu soo daahirinayo. qaarna waxaa la tilmaamaya tawxiidkiisa culaysku leeyahay, ilaahay siduu u weyneynaye uga cabsanayey ee rabbi qalbigiisa u deganaa, tawxiidkiisaasi inuu miisaan weeye oo dunuub badan uu la degayo tawxiidkaas. haddaba waxaynu leenahay acmaasheenna waxay u baahan tahay kow atanqiya, intaynu nadiifin karna inaynu nadiifino, waxaynu cunayno inaynu xalaal ka dhigno, waxaynu huwanay inaynu isku dayno inuu xalaal noqdo. dadka inta badan how much you earn un baynu isweydiinaa, waxay doonaa kugu soo galo. laakiin waa mushkilad. waxay ahayd inaad isweydiiso maxaad xalaal xoogsatay, waxa kale aakhira iyo adduuntoona anfac ma leh.